1066 Faransiiska ayaa qabsaday ayagoo boqortooyo samaystay waxa xoog ku qabsaday Faransiiska boqorkoodiina wuu ka dilay wuxuuna haystay in ka badan 300 sano wuxuuna ku soo daray ereyo badan oo Old Faransiiska ahaa wuxuuna meesha ka saaray ereyo badan oo Old English ahaa waxayna wax ka bedeleen qaabka ay dadka ereyada iyo waxyaabo badan oo nidaamkii luqadda loo isticmaali jiray uu meesha ka saaray waxaana systemkii noqday Middle English 1350 AD xorriyaddii kadib 1350 ilaa 1590 waxaa lagu magacaabaa The Great Vowel Shift waxaana wax badan laga bedelay qaabka loogu dhawaaqi jiray shaqalada Middle English to Modern English waana asaasida qaabka